walaalkayna waa ku faraxsanahay cawada inuu aniga buuga xambaarsanaa jiro inuu isugu buug wato aniguna aanan buug wadan gabadhan calool kaliya sidata laakiin ninka dhalaya oo wax beeraya aniga waay anaa dhihi kara hala raba waxaan dhihi karaa 2 ilmood ka dhalaya 3 ilmood ka dhalaya anaa go'aankaas kale ayadu ma lahan raadinaya fixed term contract soo dooda ma soo karto aniga 8 saac shaqada aadaysi lacagtii anaa miiska saaraya aniga axsaan falaya la socda laakiin 4 saac anaa shaqo gooni ii qabane sababtoo 4 saacad sheegayso oo aad leedahay lacagaan miiska saara walaal wax aan lacag goynin baa jira lacag waxaan goynin baa meesha jira one night stand ma waxa u xisaabtamaysaa sida dadka nimanka iyo naagaha macaasida la soo kiraysto kale oo la dhahayo adiga intaas oo saacadood hotelkana iigu jiraysa dhar noocaas ah ii soo xiranaysa caawana waxa marti noogu ah dirabiidno wariyaha weyn ee lajinada gabdhaha Soomaaliyeed ay ku deedaan Aamina Muuse Weheliye marti noogu haysana sidoo kale Shawiin Baale laadaan ka soo qaato barnaamijkii isbuucii hore halkan aan ku qabanay labada su'aalood ee ugu waaweyn dadka Soomaalida ay isweydiinayaan ama gabdhaha Soomaaliyeed ay isweydiinayaan waxaa ka mid ahaa laba arrimood labada arrimood ahayd inuu walaalkii Shawiil uu yiri gabar Soomaaliyeed oo aan shaqaysanin ma guursanayo ta kalena waxay ahayd gabadhu haddaysan shaqaysanin oo aysan rabin inay shaqayso guri joog ay tahay anigu guri joog ka yeeli maaye 4 saacadood waa inay ani ii shaqayso shakhsi ahaan 4 saacadood waa inay ii shaqayso asna dadku way fahmi waayeen waxay u fahmi waayeen 4 saacadood ee mataqaanaa walaalkii Shawiil loo shaqeynayo maxay tahay waxa u malaysaa inay aniga dhex hadlayso macnaha wixii waan rabinaa Soomaali u sheego ayaa su'aashan ay ku soo beegatay marka waxa aan gaagaabinayna se waqti u beeqaadna maartay marka waxa waay ani 4 qodob doodayda oo dhan 4 qodob ay ku saabsan tahay okay afartooda isku xujinaya qofkii dood ka qaba aamine iska daaye qof kasto dood ka qaba ayaana soo gali kara afartaydaas marka ay sheego markaas ayay fahmaysaan 4 qodob waa wataa marka 4 qodob waa wataa su'aashaas ka dhalanaysa waxa waaye gabadha meherkeeda ugu horeeya ani waa kula gorgortaba dhagiina furo wixii hore beenay ahaayeen ma say ku dooranaysaa gabadha say ku dooranaysaa gabadha aad guursanaysid ha maxaad ku dooranaysaa waxa ku dooranay waa ku sheegay inay shaqaysaa waa gabar shaqaysa fikirkii ani aaminsana ila qaadanaysa ayaa shaqa ka bilowda shaqa kuwa shaqa koowiya iyo mabda'i ani arab sida u noolaado 4 qodob ku jirtaa inay ila qaadanaysa haday ila qaadanaynin ardullahi waasi'ab wax xoog iyo qasab ma jiraan waa shaqo waa lifestyle kaaga inay qaadato lifestyle 4 qodob waa 4 qodob haday ila fahmaan waa soo dhaweynaa waxa ila fahmin xor waay labada kale noo sheeg lifestyle iyo lacag 4 qodob ku iri lifestyle keega 4 qodob ay ku dhisan yihiin okay meherkeeda waa gorgortan maadaama baahi gooniyaan u qabinin waa number 2 waxa waaye nolosha ani ayadu waa no 50-50 sababta baahi gooni uma qabo wax aan aniga aan oo gooniyo ima hayso ta saddexaad waxa waaye ilmaha inta aan ka dhalay ana mas'uulka sababta ana mas'uulka ilmaha inta dhalay gabadhan calool kaliya sidata laakiin ninka dhalaya oo wax beeraya aniga waay ana dhihi kara hala raba waxaan dhihi karaa 2 ilmood ka dhalaya 3 ilmood ka dhalaya anaa go'aankaas kale ayadu ma lahan waa qodobka saddexaad waay qodobka afraad waxa waaye haday dhacdo oo isfaham weyn oo kala tagno ilmahan ragga laga ciirsanayo ama odayaasha la dhahayo ilmahan muuse dhawaan kartaa anigu ma aaminsanin hadaysan ogoleen inaan la korsado ilmaha maxkamada saaraya 4taas qodob waay aniga marka gabadhii ogol waa soo dhaweynaa gabadha ogoleen 100 wiil oo aniga fiicana jirta oo Soomaaliyeed oo maasanta okay Aamina maxaad ka dhahaysaa nolosha loo dhisi karaa haddii aad tiisa mataqaana wax ka weydiinaysana okay haddii aad noo sharaxaysidna waa okay taada horta waa mahadsan tahay walaalkayna waa ku faraxsanahay cawada inuu aniga buuga xambaarsanaa jiro inuu isugu buug wato aniguna aanan buug wadan marka horta 4 qodob 3 qodob aad u fahmay oo dambe qodobka hore si uu dhaafay but anyway waxaan rabaa walaalkay in horta walaalo guurka ma galo
iyo dictatornimada iyo kalitalisnimada iyo macangegnimada meel islama galaan. waxaan rabaa sheeko yar inaan kaaga sheekeeyo intaan afka jawaabin. nin waxaa jira aniga awoobahey ah, hooyaday abtigeed runahow ahay. saad adigu u warramayso kale u warrami jiro, weliba waa dhowrsan jiro. man naag baa saa yeelaysa, anigu waxa way xasaan la qabto ha abkowgay geesdiira la dhihi jiro, asgariyo ahay. ya wallaahi inaana been kuu sheegayn, weligiis xidig lama dhaafin. maxaa yeelay dabeecad xumadow guriga la joogo askartuna kula dhex jira. mug kasta markii wax yar la siiyo waa laga rifaa le garaadada, waa laga soo rifi jira le. abkowgay ilaahay waxau xukmay soo isu jooqaarihaaye oo isu jooqaarihaaye oo isu jooqaarinaaye oo manaag baa saas isiisa waxaas leh in markii dambe oo helo mid inta jilbaha dhulka ugu dhufatay naanaab ka dhigtay. laakiin nolosha aan soo maray iyo experiencega aan leeyahay ayaa waxay ii dhigtay walaalkeeyow ay bartay inuunan isjooqaaris naag iyo ninba guri ku dhaqaynin. marka adiga waxaan aad buugga u wadato buugga kuugu yaala oo aad leedahay afartaas haddayna ahayn naag bus waaba iga dhimane waa ku guur beeleele. aniga ma raba afaarahaaga hoose inaan gala hadda naag maa qabtaa waxaas baro inaan ku galo ma rabo, laakiin waa ku naag la-da hallee naagahan kale lee goorba raadsahaysaa ood buugga u qaadays. laakiin naag Soomaaliyeed u malay maayo inaad wax isku darsan kartiin.